inanta yar waxay iska socotay dariiqa keliya mar keliya ayaa waxay ku warheshay baabuur agteeda istaagay, waxaanay dareentay cabsi aada u daran. agteeda waxaa ka dhow ay sidaan u wada jeedno. inanta yareed waxay u guratay dib, iyadoo isku dayeysa inay ka fogaato baabuurkan. dabcan ma oga marxaladda waqti xadarkan wixii la gudboon inanta yari, balse waxay kaliya isku dayeysaa inay ka fogaato baabuurkan maadaama ay saaran yihiin rag ama dad aanay garanayn, kuwaas oo aan habeerata horena aanay u arag. kadib waxay isku dayday inay ka fogaato iyadoo hareeraha eegaysa, iskuna dayeysa inay dalbato caawimo haddii ay dadkani dhibaato ula yimaadaan. saan u wada jeedno, gadaal bay u guratay ama dibdib, waayo sababtoo ah sanadadii ugu dambeysay waxaa la daadgureynaya ama la guranaya ama la xadayay caruur fara badan. haddaba qisadan inantan yariyo baabuurkan wax aada ula yaab badan ayaa ku dhex duugan. waxaan rajeynayaa ilaa dhammaadka inaad la daawan doonto. aynu bal dhammaanteen u wada feejignaano, waxaa dhici doonaa baabuurkan iyo ragga saaran iyo inantan yar xaaladda dhexdooda ka dhici doonta. wuxuu arinku mar keliya isku bedelayaa. bal daqiiqadii la daawo. sadarkaysan halkaa dambe ay baa ka soo cararay, sababtoo ah aygan waxau dareemay inanta yar inay cabsi dareentay, isla markiiba inanta yareeda gadaal bay u carartay. aygu wuxuu awoodda saarayaa inaanay raggani ka soo degin baabuurka si aanay inanta yar u qaadan. inanta yareedna gadaal bay u carartay. aygiina wuxuu awoodda saaray in aanay raggan daaqada soo furan, sababto haddii ay daaqada furaan soona degaan waxay ku guuleysanayaan inanta yar inay hore u qaataan. asxaabtida qaaliga ah, barnaamijka waxaan usoo qaatay in dad badan oo caruurtooda si aan habbooneyn dabadda ugu dira ama meel ka foga ama adeegoo kale u dira, inaanay ogin waqti xaadirka dunida in caruurta aada loo guranayo. waliba wadamada reer galbeedka waxaad moodaa sanadadii ugu dambeeyay jarmalka in aada loo qaadinaya caruurta. aad badin salaamay asxaabtida, waxaan rajeynaya barnaamijkan inaad ila fahanteen ujeedada aan usoo qaatay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.